gudoomiyahan Axmed gudoomiyaha ururka Nasiye aad ayaan kaaga mahadnaqayaa sida aad nooga ogolaateen waqtigaaga qaaliga aad wax naga siisid oo ah waraysi aan jeclahay lixda ururba inaan la yeelno oo waliba ay su'aalo isku mid yihiin si aan dadka ugu soo bandhigno wala wada cusub yahay inta badan qofkii muxuu wadaa ururkan maxaa ku kalifay inta u gelin waxaan jeclaan lahaa adigoo raaliya inaad taariikh nololeedkaagii CV-gii si kooban halkaad ku dhalatay intaad soo martay iskuulinkaagii aad noo wadid بسم الله الرحمن الرحيم عوكي aad baad u mahadsantahay adiga iyo kooxda bahda media production fursadaadi siiseen maanta inaad halkan igu casuuntaan aad baa ugu mahadsantihiin haddaan si kooban u dulmaro su-aashaasi ama aan ka jawaabo taariikh nololeedkayga anigu waxaan ahay Axmed Maxamed Cumar waxaan ku dhashay magaalada Diridhawa ee dalka Ethiopia sanadkii 1970 dabcan kumaan korin Ethiopia anigoo yar oo sanad waxoogaa meelaha jiraysa la ii sheegay ayaa qoyskii ka soo guuray magaalada Diridhawa waxaan soo degnay magaalada Arabsiyo waxaan ku qaatay noloshayda Arabsiyo Hargeysa waxbarashadii hoose dhexe iyo saraba waxaan laga bilaabo waqtiga ilaa waqtigaas ayaan Arabsiyo Hargeysa deganay qadduusay hoose dhexe iyo saraba waxaan ku qaatay magaalooyinkan Arabsiyo iyo Hargeysa inta kadib waxaan qaatay waxbarasho dhinacyada fara badan leh oo diblomayaal oo gaaban oo waxbarasho sida xagga caafimaadka oo kale oo aan ka qaatay waxbarasho dibloma oo meelo badan tababaro fara badan u tagay iyo mid waxbarasho aan ka qaatay hay'ad institute caalami oo dalkankii ku yaalo la yiraahdo Amref inta dibadda waxa la yiraahdo Diploma Community Health Program la yiraahdo inta dibadda waxaan xagga waxbarashada ka bilaabay inaan waxa distance learning programs aan haddana ku qaato waxbarashada sare waxaan qaatay waxbarasho aan ka qaatay jaamacadda la yiraahdo Malaysia International Al-Madina International University ee dalka Malaysia ku taala ayaan ka qaatay waxa la yiraahdo Islamic history waxa la yiraahdo taariikhda islaamka oo Islamic studies qayb ka mid ah qaybteeda labaad oo ay ku leeyihiin jaamacad kale Sacuudiga ku taalo la yiraahdo Knowledge International University ayaan ka qaatay imaamin hadda thesis-keedii wada qaybteedana master degree-geedii oo ah isla subject-ka oo ah taariikhda iyo kusaytay waxa la yiraahdo shariicada iyo maxaa la yiraahdaa shariica law la yiraahdo shariicada iyo ilowga qaanuunkan maadiga ayay isku eegaan laakiin bal qaabkay isku integrate gareeyeen man ayaan ku ciyaariyada ku sameeyay imanka jaamacadda la yiraahdo Al-Madina University waxa kale distance learning programkaasi aan diploma postgraduate ku qaatay yadana waxa la yiraahdo diyaarinta ama gender based responsive programs planning qayb kamid ah ayaan macad ku yaala dalka Talyaaniga oo la yiraahdo ITC wada Turin la yiraahdo ku taala International Training Center jaamacadda Turin University hoostaga ayaan ku qaato hay'adan ILO la yiraahdo anagu si course ka naga bixisay scholarship-kiisa waxa kale oo qaatay jaamacaddan Ethiopia branch ee ku leedahay Admas University la yiraahdo waa iyada management ka qaatay iyadana bachelor ka qaatay waxbarashooyin kale fara badan oo go'goos oo training soo fara badan oo intii aan u shaqeynayay hay'adaha international ka aan u tagay wadamo badan oo Afrika kamid ah ayaa iyagu jiray oo sida research meteorologist ka maqaalada la yiraahdo public health management ka sida loo maareynta iyo maamulka caafimaadka bulshada aduu way fara badnaayeen ilaa waqtigaas ilaa inta qaatay xagga shaqada hadii aan waxoogaa kooban ka yiraahdo waxaan ka soo shaqeeyay ilaa waqtiga shaqada bilaabay oo ku siman 89 ilaa maanta waxaan soo shaqeynay hay'adaha caalamiga international organizations oo aan
fiilal fara badan oo kala duwan oo adigu almost qaybtan community development programmeska la yidhaahdo horumarinta bulshada uun u badnaa ayaan ka soo shaqeeyey. waxaa kale oo ay u badnaayeen meelaha qaarkood sida emergency programmeska meelaha qaxootiyada oo kale aan marar badan ka shaqeeyey. marka waxaa intaa uun ay u badnayn intii dambena consultancies baan kula shaqeyn jiray la talin dhinaca arrimahaasi horumarka bulshada iyo horumarinta hay-adaha maxalliga ah ee civil society organizationska la yidhaahdo ayaan kula shaqeyn jiray. ilaa halkaas ayaan markaa ka tadawuro xagga siyaasadda ayaan uga baydhay. markaa gartay goormaad siyaasadda ku soo biirtay? siyaasadda sidaan aad ogtahay hore waxaan u lahaa ama hami siyaasadeed waan iska lahaan jiray la yaraantay, laakiin waxaa si rasmi uga soo biiray wakhtigii bilowgii axsaabta siyaasadda somalilan oo aan ka mid noqday xusbigii kulmiye oo aan ka mid ahaa howlwadeennadiisa iyo iyo ololayaasha iyo howl socodsiiska aan ka mid ahaa. isla marka dambena aan ka mid ahaa hogaanada ayaan ku soo biiray. markaas ayaan si rasmi ugu soo biiray siyaasadda. marka ilaa intii uu xisbi alxaakimka noqonayay talada uu qabanayay kulmiyaad ka soo tirsanay? kulmiyaan ka soo tirsanaa. waxaad gudoomiye kulmiye ahayd wakhti ay aad ugu adkayd oo cidhiidhiya oo muddo 8 sannadood oo rafaad idin haystay, mucaarad baad ahaydeen. saad wadeen nasiib wanaag waad ku guulaysateen. intii horeed ku rafaadaseen waxaad moodaa gudoomiyaasha intooda badan inay axsaabta ku soo rafaadeen. intaad ku rafaadaysanba waad u dulqaadatay. markuu noqday xisbigii talada dalka qabtay maxaad uga leexateed uga tagteed u furatay xisbi kale? wallaahi axmed waa su-aal fiican oo inta badan dadku ayna weydiiyaan. oo intii hore dhibaatada ama daawaha lagu soo wadeeyey lasaadka ay adkaydba oo ka mid ahaydeen markii la guulaystay maxaa uga weecateen? taas waa su-aal. kolley waxyaabo badan oo noo muuqday oo fursad inaan u helno ay ahayd ayaa jaaniskii waxaa bixiyey madaxweynaha Siilaayo Axmed Maxamuud Siilaayo. mar weeye nasiib kamaanu mid noqonin annagu qoladii u xushay ee uu dowladda u xushay kamaanu mid noqon. talabaad fursad ahayd aanu arkaynay ururadu qaabka u samaysmeenoo aad moodaysay in gaara iyo koota gaara ay isku xidhan yihiin ama cid gaara ay loogu adeegayo ururada ayaan anagu gurub ahaan haddii aan inteeda nasiya samaysay aan ka warramo ayaan nooga dhex muuqatay inaanu heli karna jaanis bal aanu ururo cidina aanan u daba fadhiisan aanu ku dadaali karno inaan samayn karno. markaa nasiib wanaag waxay ahayd mid ka mida furihii ololeynta xusbigii kulmiye in wakhtiga uu guulaysto uu furi doono ururada axsaabta siyaasadda si ay dadku jaanis ugu helaan. marka annagu hamiga waxaa inta badan siyaasadda somaliland hogaamiya dad ilaa 60kii ku soo jirayey oo loo leeyahay hebel muxuu ahaa kanbuu ahaa waxaan ka fikir war jaanis ma heli karna inama bilaabi karna inagu inaan noqono dad la leeyahay siyaasadii ku cusub yihiin dabcan, laakiin weji cusub oo siyaasadeed ama qaab cusub bilaabi karaya ma noqon karnaa. haabay isla qaadanay dee jaaniska imika waxaan isla aragnay markaa jaaniskaasi inuu 10 sanadeeda soo noqon doono. jaaniska ma ka faa'iidaysan karnaa imika intaan ama kulmiyad daba joog lahayn ama aan maqaraysay aan halkan waa la naga tegay ka hayn lahayn inagu wax ma qabsan karnaa waan isweydiinay. tii baan isku raacnay. taas fikirkaas ayaa keenay markaa inaanu ka guurno ururkaanu muddada badan aanu xusbigaanu ka mid ahayn aanu mid cusubka aanu hagaag. ilaa imika intii somalilan ay qarannimadeeda dib ula soo noqotay trigooni isku taagga ay ku dhawaaqday 4 dowladood baa soo maray. marka lagu daro maamulkan madaxweynaha hadda Siiraanya uu hogaamiyo cabdiraxmaan axmed cali allah u naxariistay, maxamed ibraahim xigaal allah u naxariistay, daahir riyaale iyo madaxweyne Siiraanya imika joog.
dabcan kursigaad ku socotaan meel kaloo aad ku hakanaysaan haddaad ku guulaysataan waa ilaa kursiga soo maaha dabcan maxaad isleedahay gudoomiye Axmed afartaa maamulee kala dambeeyey marka lagu daro xitaa tan way seegeen oo sidii wax laga indhasaabay noqotay oo idinka idin muuqdad ku soo kordhinaysaa horta waa su'aal fiican waxaad moodaa waxaan la yidhaahdo sooyaalka taariikhda siyaasadda Soomaaliland wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo marba cidi ay meel ay soo gaarsiisay for example in Cabdiraxmaan Tuur oo kale waqti qalalaasa iyo aan dawladnimo jirin bay ku soo haagay in ciiga kale xilli dawladnimada loo baahan yahay oo maanta in haykal dawladeed la dhiso oo ay muhiim tahay ayuu ku guuleysteen uu taas sameeyo oo maqaysay la helo kaabayaashii dawladnimo in horta la helo ayuu hay'adkii dawladda la dhiso qolooyinkii ka dambeeyey wax maamulaho aan isleeyahay badan oo la taaban karo kumay kordhin tiisaas tan lafteedu waxaan isleeyahay wixii la filayey oo ama ballanqaadkii la filayey way qaban anigu waxaan isleenahay dadka inta badan waxa loo dooqiyay ictiraaf iyagoo dadku halmaansan wax badan ay qabsan karaan oo gudahooda ka qarsan karaan oo horumar ay ka gaari karaan in ay loobeen oo u baahan in la jiheeyo oo dhinaca horumarka loo jiheeyo dadka iyagu inay iskaashi intay samaystaan partnership samaystaan ay horumarka loo jiheeyo inta lagu dawaqanayo ictiraaf oo xooga iyo maskaxda dadka la mideeyo oo waxaan leeyahay mutadawacnimada in dadku ay u horumar ku gaari karaan mutadawacnimada tusaale kooban Axmed ku siinaya kulli xaga galbeedka wada aragto waxa maray afar doox baa inta u dhaxaysa Gibiley iyo Arabsiyo afar doox baa mara sanad kasta imika biyaha ceelasha ku dhaadhacay beeraha laga waraabiyo waxa sanad kasta levelkooda hoos buu sii dhacaa bilaanowgeed waxay gaaraan heeraanay marka dambe aanay soo waraabi karin dadka hadii la jiheeyo oo lagu yiraahdo sanadba aynu doox xiranno inuu biyaha ku xiranno ka dhagax keenaya ka keenay oo nimanka governorska baarasaabiyada meesha jooga nimanka dawladaha hoose jooga ee maayarada ah ay iskaashadaan inay dadka abaabulaan oo ay wacyi geliyaan oo yiraahdaan war aynu waxaan inagu qabsanay cid inoo maqna oo cid inoo maqan ma jirta maanta aynu qabsanno waxa hubaala inay wadin yeer ay wax badan tusi lahaayeen dadku waayo waxyaabo la tijaabiyay baa jira oo la pilot gareeyay oo ah dadku inay u baahan yihiin hoggaan tusawax laakiin haddii adduun tahay iyo haddii muruq tahay iyo haddii maskax tahay intaba ay miday karaan marka anna waxa kaga duwanaan kartaan halkan dadka laga furuxay inay cid kale ka sugaan caawimo ama ictiraaf in dhalinyarta aqoonta ay ka soo baxaysa jaamacadaha iyo kuwa adduunka haysta iyo dadka caadiga inta la mideeyo lagu jiheeyo horumarka hoose ee dalka taas baa sidoo waa ka shay kaliya ilaa imka cid adres garaysa aan jiray isaga yihiin marka waxaad ka abaarasin falsafadii ahayd qofku hadduu naftiisa ictiraaf u dhiman ma jiro marka waa in wax la qabsadaa inta ictiraaf la daba ordayo isaga iska imanaya markuu ku arko qofku adiga oo qabsaday oo beerahaagii xoolahaagii wax kasta horumarsaday aan baahida falsafad baa jirtay imko nimanka rayuruba gumeystayaasha dalka adduunyada soo galay qaabkay u gumaysan jireen adduunkan u gumaysteen ama Afrikadan badankooda iyo adduunyada saddexaad u gumaysan waxa kamid ah aadamaha baahi baa lagu abuuraa si uu dependent kugu noqdo oo adiga kugu xidhaado ayaa baahi lagu abuuraa ilaa inta aad baahi ku abuurayso ma xukumi kartid qofka mana yeelan kartid laakiin waa inuu tustaa inuu ku baahan yahay oo baahi laakiin hadduu qofku aad inuu ka maarmay isaga ku daba imanayo koray balkan geed oo nimanka imika barbara markuu Ingiriisku ka soo dagayay ninkii reemiga wuxuu ku yiri warniyo bal joog buu ku yiri maxaa wata xagad ka timid maxaa ku kalifay baahid deegaankiisa ka baxsan baa lahayn
inuu ninkan cadeeda barka hotelkan soo joogsaday adeer naga tag maxaad joogtay kan maanta joogan oo kan u ooyaya ilaa muxuu noogu yimo waayay waa 1800 maanta intuu dhacay soo arkaysa marka waa baahi la'aanta Axmed urbaad furtay yaa kugu dhiirigeliyay inaad ururkan furto mise waa fakar adigu ka yimid wallahi rag badan oo asxaabtayda igu dhiirigeliyay oo waan fikirsan waan lahaa inaan ku fikiro laakiin mararka waa isku geeyeen baa leeyahay marka rag badan oo nu saxaabnahay oo maanta laftooda ururka kamid ah oo ganacsi sare ururka kamid ah ayaa qayb ka ahaa fikirka ila xoojiyay la heshiisay lahaa inaan rufurno ururka marka nimankaas baan aad ugu mahadnaqayaa wax walba tala iyo horumar iyo wax walba qoyskii ku xidhan waa caa'ilada marka familka ma sheegayo guud ahaan reerka xaaska caruurta marka fikirkan ku dhalateed ku dhaqaaqday ma ka talagelisay familkaaga qoyska maxay ku yiraahdeen ha طبعا waa ka talagelay laakiin kulliyan dadkeena wada aragtaayo waxyaabaha cusub ama bilowga dadka inta badan waxay u arkaan waxa aan suurtoobi karin ama la qaban karin kolka u sheegtay tiraahdo waxaan doon warmad waalan tahay ku oraya soo saar waxa xasuusta abtiga yooni soo kale baan u sheegay oo ku yiri hawshaas aan galaya wayla yaab waraadar baad iska shaqaysan oo shaqadaadii maad si qabsan buu ni shaqaystada ayadoo meelihiisa ka shaqaystay dantaad seegi doontaa baad iska shaqaysan ma yabaan ku hurso hadaa siyaasadu wadan seeg marka rag badan oo kale oo ehel lahayn adu rag igu caawiyay way jiraan igu waa arin u baahan inaad weeru baad kala soo dhici doontaa qabaydi laakiin inta badan way kula yaabayaan dadka reerka ehelku ay cayladu way kula yaabayaan waxa kale oo ninkaagan malaad yarda waqtiga aan u jilciya dadkan Yunus Al-Nuur BBC da joogo aan wada shaqayn jirnay bulshadu waa dhowr qaybood dhalinyarada markaan dhahdo wiilal iyo gabdhaba dad kale waa qaybo badanta waxayna waa vote waa codayn codka lagu qaybtee way dad indeergarada jira aqoon-yahan haba laga tira barto qaybtee idinka bartilmaameed idin muhiimadda koowaad adsiiseynad abaarasan anagu kolkan ururka abuuranay waxaana falsafada urureed baan u sameynaa ama organizational philosophy wax la yiraahdo oo aanu thematic ka dhignay inaanu hal ku dhow u sameyno dadka aanu islaanay ururada kale ka duwanaan doontaan طبعا anaga ururkay waxa ururka dhalinyartii aqoon-yahanka marka laba group oo bulshada kamid ah laba kooxood oo bulshada kamid ah target gareena oo ah dhalinyarta oo xoogii iyo maaska cududii dalka ah iyo aqoontoon doonay inay kabto labadaas ayaa ah labada qaybood dadka bulshada kale waa kamid ururka laakiin ciidan isleenahay xuduud dhaxaad bay u noqon kartaan oo ururka ma target garanaysan waa labada weeyaan inaan xooga dhalinyarta iyo maaskooda energetic dhalinyarta dad aad u firfircoon wax qaban kara isbedelna sameyn kara aqoontu waa inay hagtaa oo ay qayb ka noqotaa furaha horumarka marka labada wax isla kaashataan cod badan waa heli doontaan waxyaabaha imika ururka aanu meelihii adkaay aanu soo marnay aanu isleenahay guusha badan waa kaga gaadheena waxa kamid ah dhalinyarta oo taageero aad u weyn ururka siisay haddii dadkii la soo baxay hadday tahay abaabulkii kale iyaga lafteesu waxay gelinaysa abaabulaayay marka aad baa yani ugu bogaadiyay qaabkii ay dhalinyartaasi hawsha noola galeen maxaad u malaynaysaa maxaad u haysaan dhalinyarada iyo dadkaasi inay makaysan horta waxaa jirta falsafad aanu isticmaalno dhalinyarta aanu ku taargad garayno waxaanu way aragnimo ku noqonay dhowrkii sannadood
taqriiban ay ururada siyaasaddu ay soo xisbiyada siyaasaddu soo jireen xisbi kastoo kamid wuxuu la dhalinyarta waxaanu qabanaa dhalinyarta waxaanu qabanaa dhalinyarta waxaanu qabanaa deedan fadhiy maalinta ugu dambeysana wixii la sheegay waxba kama jirayaan waxa uu sheegay waxyaan wax saturated oo la buunbuuniyo amaba qaban karin ba ayuu sheegay taanago oo ka dibaaqayna anagu waxaanu dhalinyarta u sheegnay ama aanu ugu baaqnaa malihin waxaanu idin qabaynaa kan iyo kan iyo kan laakiin idinka ayaanu meel idin keenaynaa si aad wax u qabsataan oo haddii aanu idhaahno kan baan idin qabanaynaa oo kan baan idin qabanaynaa oo kan baan idin qabanaynaa waxba ka duwanaan mayno baaqyadii hore ama fariimihii hore ay jiray ay sii daynayeen ururada kale ama kuwa haatan ba ay sheegayaan laakiin anagu waxaanu tusnay oo aanu practical u tusnay in waxaas ay iska tahay un ereyo fariimeed oo loogu baaqo laakiin waxaanu idin samaynaa saaxad political platform aad idinku timaadaan oo aad idinku waxaad doonaysaan ka qabsataan waayo madaxweynihii maraykanka ee 40 soo maray markii ku dhacay bankruptcy ku dhacay Mareykanka Roosevelt wuxuu yiri ma dhisi karna inagu wuxuu yiri ma awoodi karna inaan mustaqbalka dhalinyarteena markaas dhisno laakiin waxaan awoodi karnaa inaan dhalinyarta dhisno si ay mustaqbalkooda u dhistaan markaas taasaan ka duuleynaa watay gudoomiye furitaanka urur siyaasi ma dhibyar wad garanaysa inta kale markaan ka tagno ama siyaasad ha noqoto ama whatever daalaadhax kasta ha yimaadeen waxa ugu sii waxyaabo ugu waaweyn waxa kamid ah dhaqaalaha kharashka ku baxayna wad garanaysa kii hore ku baxay ka dambe idin sugay axmed xageed ka keenteen dhaqaalaha inta leeg oo su'aasha markasta dadku ay ku dawaqaan anaga na weydiiyaan wayo nagama dhaxarkaan niman ganacsata oo ururka ku jirta oo lacag haysta nagama dhaxarkaan cid kale oo ay isleeyihiin way taageero dhaqaale siin karaysaa haddana waxay arkaan annaga oo ordayna marka waa markan ay kolba meel noola kaceen ay yidhaahdeen kol xukuumadda ka dambayso oo qolaa siisa dhaqaalaha laakiin waxa weeyaan annaga markaan ururka sameynay challengeska naga horkaba ama na hortaagnaabe aanu ogeyn dhaqaalaha ka mid ahaa kow xasleen war haddaanaynu dhaqaalaha haynin waxba inaynu ku fashilmin naga daa'imkada bayanaynu halkaas la dhaafin dad waxaanu samaynay intaanu samaynin ururkaba aananu ku dhawaaqin ama aanan structurekiisaba soo samaynin oo waxaanu samaynay inaan samayno bal inaan fundraising samayn karayno iyan kale aanu dhalinyar qurbaha joogta meelo kale la xidhiidhno qanacsadayaal la xidhiidhno aanu samayno markaanu waxaa fansecure aanu dhaqaali ururnay aanu si taqriiban 75% wixii kharash aad islahaydeen muddo waa ku socon karaysaan aanu hubinay inaanu hayno ayaanu ku dhawaaqnay marka meelo badan oo anagu waxa jirtaan taageero ka helno dhalinyarta dibadda oo kale fara badan oo ilaa imikadan aanu wada galno aanu wada conference aanu teleconference aanu wada galno aanu ku ururno dhaqaalaha ayaa jirto weekly ah aanu samayno ayaa jirta marka waa run waa shay adag marka taas baa inta badan kamana daalooda kulli waa noqonay inay wax markasta hor taaganay tahay oo meeshaan isleedahay imika shirweynihii oo kale meelo badan baan niman badan xaggan magaalada degan oo ganacsiyaal naga caawiyo contribution warqado u qorano ku nidhi naga soo caawiya rag badan oo fiican baa naga caawiyay oo waxa naga geystay kala hadhista tii hore waa laga soo gudbay tan dambe saddex xisbi qaran baa soo baxay bal intaynaanu gelin kala hadhista dambe waxa lagu kala hadhiyo waa
doorashada golayaasha deegaanka dadkeennana waxa laga yaabaa in badan iyaanan wada odhan dhammaan oo suurtagal maa laakiinse in badan waxaa laga yaabaa inaana fikradba ka haysan waxa loo sameeyey golaha deegaanka muxuu yahay waxaan jeclaan lahaa bal sharax yaroo kooban inaad dadka ka siisid si ay ugu soo baxaan oo u fahmaan hadhow la xisaabtamaan golayaashan deegaanku waxay ka faa'iideeyeen axmed horta waa su-aal aad u fiican waana waxyaabaha aan tabaynay marka horeba oo dadkeennu doorashado dhanba horta ku cusub waxa doorashada la idhaayo dhan oo markaad ka soo bidan lixdameeyadii dadkii doorashadii ay bilaabatay joogay waxaa ka dambeeyey dowladdii 21 sano dalka haysto intii garanaysa waabay ma aragtay wakhtigaasi wax loo dooranayay daway ka shubeen intaa ka dambaysay qalalaasa wadal ku jiro kuwaasi annaga iyo intaas baaba dawladdii malaha ka sii garanaysa kuwan kana waa garayeen marka annaga naga dambeeyey oo kuwa annaga naga siiryaray dawladda dalka 21 sano hasuusid ahayd ma garan karaan markii iminka la yidhi nidaamkan xisaabta badan baa la qaadanayaana waxay noqotay shay ku cusub dalkan macnaha golaha deegaanka iyo dadka golaha deegaanka maxaa looga baahan yahay qofka golaha deegaanka musharaxa u noqonayana waxay ahayd shay kale oo iyaguna aad uga sii cusub oo waxay yaqaaneen nin maayaraho laga soo magacaabo madaxtooyada oo meesha jooga iyo ku xigeen cishadoodu wax sameeyeen laakiin dadkan golaha deegaanka horta la gurado local councils waxaan la yiraahdo waxa loogu talagalay asalkoodaba nimankii qaabkan samaystay aynu ka dheeganaynaa inagu aanu ka soo waranaynaa waxa la yiraahdaa taxpayers ayaa noqda waa dadka magaalada kastoo degan yihiin hantida kule ee danaynaya horumarka magaaladooda waa cashuur bixiyayaasha waa qof aan baahi hayn laakiin se ay ka go'an tahay magaaladan uu degan yahay sidaad u horumaraysaan muwadda halkaas u baahantay ma iskuul bay baahantay halkay lacagtaasi aad tirahda ay ka go'an tahay nidaamkan markaynu qaadanay nidaamkaa maynu inagu ulamaynu wariyaa nimankii ganacsadayaasha ama magaalada wax ku haystay ama lodhayaa golaha deegaangalaya way dadkeennu inta badan waad arkaysaayo golihii deegaanadii hore ayay dhibaatooyinku badan ku soo arkeen hadda inay bedelaanaa ninka wanaagsan laftiisu lagama yaabo inuu golaha deegaanka kusoo sharaxo u yimaado oo inaga nin ganacsada hadaad ku tiraahdo oo maanta magaalada kasoo warkaale golaha deegaanka soo gal adeer maha leeyiga daaba koranaya ma jiraan shuruudo marka horeba ku xidhan qofka deegaanka xubinka noqonaya hadduuse jiro golayaashii deegaanka hore wixii loo igmaday ka soo baxeen shuruudahaasi marka hore ma ku yimaadeen se sidan iminka aad carab ku yara dhufatay waxay waddadii waa laga leexay horta problem aan golaha deegaanka inuu ay magaalooyinku soo mareen ma jirto oo magaalo kasta haddaad aragto ama iyaga is haystaa ama maayar bay isku haystaan ama waxbay caynkan hebel baa xunay ay isu haystaan taas waa sababta keentay problemka keenay waxa weeyaan qaabkan loo doortay marka hore qaldanaa waa noocaan kuu sheegay party list-ka ahaa oo dadkii saxdaa dadkumay dooran oo waxaa laga yaabay inaan qofkays dadku islahaayeen qofkana wanaagsan inuu liiska halka hoose kaga jiray codkii faraha badnaa ee la siiyeyna ururka xusbiyadii hore la siiyey waxaa laga yaabaa inay dhowr qof oo ama gudoomiyaasha ururada ama wax u yara dhowaa oo liiska feeras la soo geliyey inay ku soo wada baxeen laakiin hadda way ka fududaanaysaa waanu diinay qaabka nidaam qariban buu ahaa waanu nidhi nidaam aan qofka la dooran buu ahaa iminka way ka fududaanaysaa marka la yidhaahdo axmed ha la doorto soo rox axmed weydka uu bulshada ku dhex leeyahay waxay ka muuqan doontaa codka ay siiyaan sawirkiisi baa la soo dhigayaa isagii baa ololeynaya magaciisi baa la soo dhigaya waxaa leeyahay hebel iyo hebel iyo hebel baa xaafadda ka sharaxan marka dadku intaa urur kastoo kale intaa in leeg buu soo sharaxay ururkan intaa in leeg buu sharaxay ururkan intaa dadku yaa kala dooranaya markaa ninkay xaafadoodan u dooranayaan
marka dadku laba way arnimo hadda way haystaan qolihii wakiilada ay doorteen ee reernimada ku doorteen inaanay faa'iido badan ka helin way arkeen oo taasina waxaan filaya 10 u noqon doonto in qofka reernimo ku doortaan oo reerkiina waa reer hebel isugu coday inay yiraahdaan inay ku doortaan way adkaanayaan inay 10 ka soo qaateen bay la tahay tii golaha deegaankana wax qabad la'aantoodii iyo waxay uga baahanayeen baahidooda inay ka jawaabin way soo arkeen labada 10 iyagoo haysta kulay waxaan isleeyahay dadku saad sheegtay inta codaysa kulay way yar tahay laakiin ama fahansani laakiin inta fahansani way garanayaan hadda wadada looga leexanayo maydin diyaar baa idinka ka ururahaan nasiye murashaxiintii golayaasha deegaanka meelaha badankooda ha intooda badan waan diyaarinay makalidiin baa xulay mise bulshadaad la dhex gashay kulay anagu ururahaan waxaan leenahay ama aan sameynay qaab nidaam aan ugu talagalay inaan waafajino musharaxiinta aan isleenahay iska soo sharaxayaan ururka gudihiisa xubnaha golaha deegaanka ku tartami doona waxaanu leenahay gudi gaar ah oo marka liisas fara badan marka ay yimaadaan ama ugu talagalay inay screen gareeyaan applicationska iyo CV-yadaas dadka marka ay waafajiyaan shuruudihii ama kriteeriyada aan u sameynay ay waafajiyaan qofkan bal deewana ay tigarayaan intuu qof waxaan qofan ka buuxiyay si ugu dhib yaraato inay helaan dad waayahay waydin diyaar guddibaad u leedihiin waa laba dhinac in waxa lagu dooreeya marna carabkood ku yara dhufatay qofka tirada reerkiisa u codaynaya oo reeraha hadda ilaahay ma simine waa amar alla taasi iyo qofka tayadiisa deegaankan hadhow wuxuu ugu qabanay labada midkeed idinku raacsantii horta amada ka abaarteen horta labaduba runta waa laba arrimo jira waana laba arrimo oo marnaba kala hadhaynin environment-ka hadda deegaanka aan ku noolahay laba kala hadhaya oo haddaa taa qabiilka waan ka guurayaa qofka tayadiisu ma qaadanaya suurtagal maaha waxaanu anagu sameynay waxaan isku daynaa inaan iswaafajino inaan helno qofku inaan horta helno bal qof tayo leh dabeedna qofkaa tayada leh aanu raadino bal intee in leeg ayuu taageero ka helayaa reerkiisa oo dad badan waxaa jirta iska tayalo waxaan qualitygooda fiican laakiin haddana aan reera ku xidhnayn oo hadda dadka inta mar dhow kulay doorashada noqotaan hadda inta asxaab u codaysa ama cid kale u codaysaa way iska yaraataa dabeed waxaanu samaynay markaa in aanu samayn karno in aan labadii iswaafajin karno oon qofkii horta soo qaadanno feres reerka ma garan kartid haddaad tiraa korto xagga reerkaas soo qaadan inaad adrees garayso reerka hebel inaad ka heli doonto qofkii ma garan kartid laakiin horta kow waad xagga qofka ka bartaa horta qofkii adrees garaysaa inuu qofkan uu tayadiisa iyo sida uu yahay iyo qofkan aad eegto dad marka labaad aad ku xajisiiso bal taageerada uu reerka dhexdiisa ku leeyahay inta ay leegtahay markaas waafajisa aragtida qofku wanaagsan yahay taageero reerkii ka heli karayo markaas baad u qaadan karaysaa inuu والله horta nimankaasi sida imika u muuqata rajo badan ma laha saddex horta rajo badan ma laha laakiin waa soo way yar kala sokeeyaan oo imika laba udub iyo cid ismali aan way ku soo noqon doonaan saaxada
siyaasadda dib bay ugu soo noqonaysa my opinion fikirkayga aniga kulmiye inkastoo xukuusba xaakim yahay oo haddii waxaa laga yaaba dee mooyaan xukuumaddu ay u labin garayso inuu xaggaa ka soo noqon doono oo bawarkan waxa dhib yar ahayn oo haddii meelo badan ay ka yar taageerto waxaan isleeyahay laakiin haddii uu ula sinaado ururada kale ee tartamaya dhinaca awoodda oo ay xukuumaddu free ka noqoto inay taageerto kulmiye u malayn maa isaga laftiinu soo noqonayo wallaahi intoy ay ku xidhan tahay ogolaanshaha ilaahay iyo sidaad taageerada soo hesho haddana annagu rajadaannu qabnaa waxaan is leenahay 75% waxaad ka mid noqon doontaan ururada soo baxaya xisbiyada gudbaya muddo intee leeg ayaad dalka ku sugnayd imika Somaliland malmaran meelaha u baxa mooyeen yar baa kama maqlayn dee dalkun baan joogay daljoogun baan qoyskaagu ma daljoog baa soo dibad joog waa daljoog dalkay jooga guriga aad ku nooshay ma adiga ale Axmed mise waa kira ijaar aniga ale weligaa ma lagu xiray maxaa lagu xiray waxaa laygu xiray dee horta kolley mar waxaa laygu xiray dibadda laygu xiray oo xarigii ugu badnaan galay waa maalin iyo dee waxaas waaska ma laakiin xarig aan u idhaahdo madaxweynaha Itoobiya magaciisa ma taqaanaa gidaare naga soo gidaare buu hormaraya I'm sorry waqtiga aad firaaqada leedahay maxaad isku dhaafsaa waqtiga inta badan waxbaan akhriyaa good